munaasabadani oo lagu maamuusayay xuska maalinta warfaafinta oo ku beegan 22 January ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda warfaafinta maamulka gobolka Banaadir saxafiyiin iyo qaybaha kala bulshada ugu horeen ayaa waxaa munaasabadaasi ka hadashay Farxiin Maxamed Qeere oo ah gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed SWJ waxayna ka warbixisay ujeedada ay u soo qaban qaabiyeen munaasabadani gabdhaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed Somali Women Journalists waxay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan maantadan qiimaha iyo qaayaha ugu fadhida guud ahaanba haweenta saxaafadda Soomaaliyeed waxaana ay soo saareen war saxaafadeed u qoran sida tan 22 January sanadii 1973 maanta oo kale waa maalin saxaafadda Soomaaliyeed oo ahayd maalintii ugu horeysay oo uu soo baxo wargeys ay leeyihiin saxaafadda Soomaaliyeed waxayna ahayd maalin qiimo weyn u leh saxafiyiinta Soomaaliyeed waxayna noqotay maalin la xuso astaana u ah maalinta saxaafadda Soomaaliyeed afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cismaan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay si weyn u soo dhaweynayaan dadaalka ay wadaan gabdhaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed SWJ asagoona ka hadlay ahmiyadda munaasabadda maanta oo taariikhdu ku beegan tahay maalintii ugu horeysay ee saxaafadda Soomaaliyeed la xuso oo ama aan dhahno maalintii ugu horeysay joornaalku soo baxo afka Soomaaliga oo soo baxo loona aqoonsado maalintii saxaafadda Soomaaliyeed aad baan u bogaadinayaa dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel kasta joogan gudaha iyo dibadda ugu dambeyntii agaasimaha warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Yuusuf Shaqal Cadaala ayaa ku dheeraaday ka hadalka marxaladihii iyo taariikhdii ay soo martay saxaafadda Soomaaliya iyo heerka maanta ay marayso runtii warfaafinta Soomaaliyeed waxa la sheegay in ay ka kooban tahay laba marxaladood oo kala duwan marka ama saddex marxaladood guud ahaan marka la soo koobo marxaladii inay ahayd 60kii ilaa 69kii oo ay ka jirtay dalka saxaafadda dawladdu leedahay iyo saxaafad madax bannaan intaba oo saxaafadda madaxa bannaan xilligaas jirta ay u badnayd qoraal ama inaanay u badnayn raadiyaal iyo TV laakiin ay wargeysi u badnayd sidaan taariikhda ku hayno dawladdii militariga ahayd markay timid inta badan dalka kama ayna jirin saxaafadda madaxa bannaanayd laakiin waxaa jirtay warbaahintii dawladdu ay lahayd oo ahayd runtii warbaahin aad u xooganayd oo ka koobnayd idaacad iyo telefishin iyo wakaaladda wararka Soomaaliyeed iyo wargeysiyo dhowr ah oo dawladdu ay lahayd muddadaas dawladda militariga ay jirtay ayayna samaysantay taariikhda maanta aan xusayno ah 22 January oo ah maalinta warfaafinta Soomaaliyeed taasoo dawladda Soomaaliyeed xilligaas jirta ay ugu tala gashay in lagu xoojiyo laguna muujiyo warfaafinta iyo kaalinta ay uga jirto bulshada Soomaaliyeed 22 January oo ah maalinta warfaafinta Soomaaliya ayaa inta badan xiliyadan oo kale waxaa laga xusaa gudaha iyo dibadda ayadoo munaasabada ay imaanayso xili horumar dhanka warbaahinta ah ay ka jirto dalka